wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Danjire Axmed Ciise Cabad oo soo gabagabeeyay booqashadii rasmiga ahayd ee uu ku joogay magaalada Qaahira caasimadda dalka Masar ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha Masar Mudane Mustafa Madbuuli. labada mas'uul ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Masar waxaana uu wasiir Axmed Ciise Cabad dowladda Masar uga mahadceliyay garab istaagga dowladda Soomaaliya isagoo xusay in shacabka Soomaaliyeed ay abaal u hayaan walaalahood Masar. sidoo kale ra'iisul wasaare Mustafa Madbuuli ayaa dowladda Soomaaliya ku amaanay horumarada kala duwan ee ay dalka ka wado isagoo shacabka Soomaaliyeedna ku bogaadiyay sida ay uga go'an tahay inay soo ceshtaan dowladnimo buuxda waxa uuna ballan qaaday in dowladdiisa ay garab taagan tahay Soomaaliya. kulanka ra'iisul wasaaruhu wuxuu daba socday kulamadii aan la kulmaynay la yeelanaynay booqashadayada kadib madaxda dalka Masar kaasoo guud ahaan ku saabsanaa xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Masar xiriirkaas oo ahaa mid qoto dheer oo taariikhi ah ra'iisul wasaarahan saaka la kulanay waxaan kala hadalay xiriirka Soomaaliya iyo Masar sidii loo soo xoojin lahaa waxaan uga mahadnaqnay garab istaagga Masar ee Soomaaliya garab taagan tahay isaguna aad ayuu u amaanay horumarka dowladda federaalka ee dalka ka wado iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed sida ay uga soo noqonayso burburkii uga soo kabanayso wuxuuna ballan qaaday dowladda Masaarid inay dadka Soomaaliyeed garab taagan tahay annaguna taasaan soo dhaweynay kuna sii boorinay. dhanka kale wasiirka ayaa shir gudoomiyay kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta kadib markii uu codsi ka yimid madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas si looga hadlo xaaladda Falastiin. kulanka waxaa furay wasiir Axmed Ciise Cabad oo ah hogaamiyaha wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta waxa uuna ka warbixiyay in kulanka uu yahay mid lagu gorfeynayo xaaladda Falastiin isagoo kelmadda ku soo dhaweeyay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas. khudbaddii madaxweyne Maxamuud Cabbaas oo ahayd mid muujinaysa duulaanka Yuhuudda ay ku doonayso inay boobto dhulka reer Falastiin ayaa madaxda Carabta ka codsaday inay garab istaagaan Falastiin maadaama Israa'iil ay garab ka helayso dowladda Mareykanka. kulanka kadib waxaa si gaar ah u kulmay wasiir Axmed Ciise Cabad iyo xogayaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abulqayd waxa ayna ka wada hadleen waxyaabihii ka soo baxay kulanka iyo sidii loo wajihi lahaa. waxaa jiray shirkii jaamacadda Carabta wasiirada arrimaha dibadda aan caadiga ahayn oo looga hadlayay oo ahaa mid ay dowladda madaxweynaha Falastiin uu codsaday kaasoo maanta la qabtay Soomaaliyana ay shir gudoominaysay kaasoo looga hadlay dowladda Falastiin oo tabanaysa inay dhulkii Falastiin uu khatar ku sii jiro siyaasadaha taagan baryahan dambe ku dhaqmayaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo dowladda maamulka Mareykanka oo hadda jira ayay ka cawdeen waxayna weydiisteen dalalka Carabta inay garab istaagaan haddii kaleeto aan Falastiin dhulka Falastiin iyo Masjid al-Aqsa iyo intaba inaan la arki doonin taasoo Carabtuna ay ballan qaadeen inay dadka shacabka Falastiin iyo xaqooda ay garab taagan yihiin.